Mas'uul ka tirsan dowladda Iiraan ayaa sheegay in ilaa iyo 2,000 oo qof ay ku dhinteen rabshadaha iyo kacdoonnada ka socda dalka Iiraan, kuwaas oo sababay khasaare naf iyo maalba leh, isla markaana ruuxay xasilloonidii guud ee bulshada. Qiyaastii 2,000 oo qof ay ku jiraan ciidamada ammaanka ayaa ku dhintay banaanbaxyada ka dhacay Iiraan, sida uu mas'uul Iiraani ah u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters maalintii Talaadada. Tani waa markii ugu horeysay ee dowladda si rasmi ah u qirto tirada sare ee dhimashada ka dhalatay howlgal amni oo aad u xooggan oo lagu wajahay 2 toddobaad oo qalalaase iyo kacdoonno ah. Mas'uulkan Iiraan oo la hadlay Reuters isla markaana diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in dadka ugu yeeray argagixiso ay ka dambeeyaan dilalka loo geystay banaanbaxayaasha iyo ciidanka ammaanka labadaba. Si kastaba ha ahaatee, ma uusan bixin faahfaahin cad oo kala saaraysa cidda dhimatay iyo cidda badbaaday. Qalalaasahan oo ka dhashay xaaladda dhaqaale oo aad u liidata ayaa noqday caqabad gudaha oo tii ugu weyneed ee hor yimaada hogaamiyaasha diimeed ee Iiraan ugu yaraan 3 sano ee la soo dhaafay, wuxuuna ku soo beegmay xilli cadaadis caalami ah uu sii xoogaysanayay kadib weeraro ay Israa'iil iyo Mareykanka qaadeen sanadii hore. Isniintii fiidkii, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay canshuur 25% ah oo lagu soo rogay badeecadaha ka yimaada dal kasta oo ganacsi la sameeyo Iiraan, oo ka mid ah dalalka ugu waaweyn ee saliidda dhoofiya. Trump ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyin militari ay ka mid yihiin xulashooyin uu ka fiirsanayo si loo ciqaabo Iiraan, isagoo horaantii bishan yiri, "Waan diyaarsanahay, hubkuna waa noo diyaarsan yahay." Ilaa iyo hadda Tehran si cad uguma jawaabin ku dhawaaqista canshuurta Trump, balse si degdeg ah ay Shiinuhu u cambaareeyeen. Iiraan oo horey ugu hoos jirtay cunaqabateyn culus oo Mareykanka saaray, waxayna inta badan saliiddeeda u dhoofisaa Shiinaha, halka Turkiga, Ciraaq iyo Imaaraadka Carabta iyo Hindi ay ka mid yihiin saaxiibada ganacsi ee ugu waaweyn. Inkastoo falanqeeyayaashu sheegeen in Iiraan ay horey uga badbaaday banaanbaxyo kuwan ka waaweyn, haddana qalalaasaha hadda jira wuxuu ku yimid xilli aad u nugul maadaama dhibaatooyinka dhaqaale ay gaareen heer aad u daran. Iyadoo la muujinayo hubanti la'aanta caalamiga ee ku saabsan waxa xiga ee ka dhici doona Iiraan, oo 10 sano ka mid ahayd quwadaha waaweyn ee Bariga Dhexe, ayaa ra'iisul wasaaraha Jarmalka Friedrich Merz sheegay in uu rumaysan yahay in xukuumadda Tehran ay dhici doonto. "Waxaan u maleynaynaa in aynu hadda markhaati ka nahay maalmaha iyo toddobaadyadii ugu dambeeyay ee nidaamkan," ayuu yiri Talaadadii, isagoo raaciyay in haddii xukuumadda awood ku hayso rabshad, taasi micnaheedu yahay in ay dhammaadkeedu timid. Ma uusan faahfaahin in aragtidan ku salaysanayd xog sirdoon ama qiimeyn kale. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Abbas Araghchi ayaa si kulul u diiday hadalka Merz, isagoo ku eedeeyay Berlin la wajiileen, kuna sheegay in ay baabi'isay wixii kalsooni ee haray. Inkastoo banaanbaxyada waddanka oo dhan ka socdaan iyo sanado cadaadis dibadeed ah, haddana weli ma muuqato kala jab ku yimid hoggaanka ammaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah, taasoo suurtagelin karta inuu dhammaaday nidaamkii diimeed ee talada hayay tan iyo kacaankii Islaamiga ah ee 1979. Mas'uuliyiinta Iiraan ayaa isku dayay 2 istiraatiijiyad, iyagoo qiraya in banaanbaxyada la xiriira dhibaatooyinka dhaqaale ee sharci yihiin, haddana isla waqtigaas fulinaya howlgal amni oo aad u adag. Dowladdu waxay u aragtaa ciidanka ammaanka ee banaanbaxayaasha labadaba in ay yihiin carruurteeda. "Inta karaankeena waan dhageysanay codadkooda, waanan sii wadi doonaa, xitaa haddii ay jiraan dad isku dayaya inay ka faa'iidaystaan banaanbaxyada," ayay tiri afhayeenka dowladda Faadumo Mahrajani Talaadadii. Mas'uuliyiintan ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo Israa'iil inay hurinayaan qalalaasaha, iyagoo kaashanaya dad aan la garanaynin oo ugu yeereen argagixiso. Xildhibaan Maxamed Reza Sabaqyaani oo matala gobol ka tirsan Yazd bartamaha Iiraan ayaa sheegay in dowladda waajib ku tahay inay xaliso cabashooyinka shacabka, isagoo ka digay in haddii kale dhacdooyinkan oo kale ay mar kale dhici doonaan, balse ka sii daran. Banaanbaxyadu waxay bilowdeen 28 Diseembar kadib markii uu hoos u dhacay qiimaha maxalliga ah, waxayna isku bedeleen mudaharaadyo ballaaran oo loogu cabanayo saboolnimo iyo nolol aad u adag, iyo baaqiyo cad oo lagu dalbanayo in la rido nidaamka diimeed. Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa horey u sheegay in 100 qof la dilay halka kumanaan kalena la xiray. Xayiraadaha isgaarsiinta oo ay ku jirto internetka oo la gooyay maalmahan dambe ayaa adkeeyay helitaanka xogta. Xafiiska Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay ayaa Talaadadii sheegay in adeegyada taleefanada dib loo soo celiyay, balse internetku weli yahay mid go'an.
Muuqaallo muujinaya iskahorimaadyo habeenkii dhexmaray banaanbaxyaal iyo ciidanka ammaanka toddobaadkii la soo dhaafay. Qaar ka mid ah oo Reuters u xaqiijiyay ayaa muujinaya rasaas dab lagu qabadsiiyay gaadiid iyo dhismayaal iyo rabshado fool-ka-fool ah. Ururka xuquuqda aadanaha fadhigiisu yahay Mareykanka Harana ayaa sheegay in ilaa iyo Isniintii dambe la xiray 10,721 qof, inkastoo Reuters ay si madax bannaan u xaqiijin karin tiradaas. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in magacyadoodu ku aqoonsadeen 100 qof oo la dilay, halka kooxaha mucaaradka ee dibadda jooga ay sheegeen in tirada dhimatay ay aad uga badan tahay 2,000 oo qof ee uu sheegay mas'uulka Iiraaniga ah. Harana ayaa sidoo kale sheegtay in ay heshay warbixino iyo muuqaallo laga soo diray qabuuraha Beheshti Zahra ee Tehraan, halkaas oo qoysaska dhibanayaasha ay isugu tageen iyagoo ku dhawaaqayo halku-dhigyo mudaharaadyo ah. Suurtagalnimada wadahadal lala yeesho Washington. Mas'uuliyiinta Iiraan ayaa Isniintii sheegay inay furan yihiin kanaalada xiriirka ay la leeyihiin Washington xilli Trump uu ka fiirsanayo sida uu uga jawaabi doono tallaabooyinkan adag ee Iiraan qaaday. Waxaa waajib nagu ah wadahadal, waan samayn doonaa, ayay tiri Mahrajani Talaadadii. Afhayeenka aqalka cad Carolina Leavitt ayaa Isniintii sheegtay in inkastoo duqeymaha cirka ay ka mid yihiin xulashooyinka Trump, haddana diblomaasiyaddu waa doorashada koowaad ee madaxweynaha. Waxa aad maqlaysaan hadallada si fagaara ugu imaanaya nidaamka Iiraan waa ay ka duwan yihiin fariimaha sida qarsoodiga loo soo dirayo. Madaxweynuhuna wuxuu danaynayaa inuu sahmiyo fariimahaas, ayay tiri. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Caraaqji ayaa sheegay in Tehraan ay daraasaynayso fikrado ay soo jeedisay Washington, inkastoo uu ku tilmaamay kuwo aan la jaanqaadi karin hanjabaadaha Mareykanka. Xiriirka aniga iyo ergeyga gaarka ee Mareykanka Steve Witkoff wuxuu socday ka hor iyo kadib banaanbaxyada, welina way sii socdaan, ayuu sheegay. Geesta kale, shirkadda DP World ee laga leeyahay Dubai ayaa sheegtay in howlaha ka socday dekedda Berbera ee Somaliland ay si caadi ah u socdaan, islamarkaana aysan wax saameyn ah ku yeelan khilaafkii diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya. Shirkaddu waxay carabka ku adkaysay in shaqada dekeddu ay weli socoto sidii loogu talagalay, ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa maraakiibtuna ay yihiin kuwo aan hakad gelin, taas oo muujinaysa in muranka siyaasadeed uusan weli wax ka bedelin howlaha ganacsi ee muhiimka u ah gobolka. Shirkadda dekedaha iyo saadka ee DP World oo ay leedahay Dubai ayaa Talaadadii sheegtay in howlaheeda ka socdaan dekedda Berbera ee Somaliland ay weli ku socdaan heshiisyadii hore ee jiray, inkastoo ay jiraan xiisado goboleed oo ka dhashay kacdoon iyo colaado sii xoogaystay oo ka taagan dalka dariska ee Yemen. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Isniintii ku dhawaaqday inay baabi'isay dhammaan heshiisyadii ay la lahayd Imaaraadka Carabta, kuwaas oo ay ka mid yihiin heshiisyada dekedaha, difaaca iyo iskaashiga amniga, iyadoo ku eedeysay dalka Khaliijka inuu ku xadgudbay madaxbannaanida qaran ee Soomaaliya. Go'aankan ayaa daba socday baaritaan ay Muqdisho ay bilowday toddobaadkii hore, kadib markii isbahaysi uu hogaaminayay Sacuudi Carabiya uu ku howlan yahay dagaalka Yemen, halkaas oo si weyn u kacsan yihiin khilaafaadka u dhexeeya quwadaha saliidda ee Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Sida la sheegay, UAE ayaa si qarsoodi ah Yemen ugu soo saartay hogaamiyaha gooni-goosadka iyadoo mariyay dhulka Soomaaliyeed. Qalalaase culus ayaa bishii hore ka qarxay Yemen markii xoogagga gooni-goosadka ay la wareegeen koonfurta dalka oo ay ku jirto magaalada dekedda ee Cadan, kuna sii fideen ilaa ay gaareen xuduudka Sacuudi Carabiya, taas oo ku qasabtay Riyaad inay tallaabadaasi ku tilmaanto khatar toos oo ku wajahan amniga qarankeeda. DP World weli waxay diiradda saaraysaa howlgal ammaan ah, hufan oo joogto ah oo dekedda ah, iyo faa'iidooyinka dhaqaale u adeegaya Somaliland iyo guud ahaan Geeska Afrika, ayay shirkaddu ku tiri bayaan ay siisay Reuters, iyadoo intaa ku dartay in arrimaha la xiriira go'aanada siyaasadeed ee wadahadallada dowladaha ama mowqifyada diblomaasiyadeed ay tahay in loo jeediyo hay'adaha ay khusayso. Imaaraadka Carabta ayaa muddo dheer xiriir dhaqaale iyo mid amni oo qoto dheer la lahaa Somaliland. Tiirka ugu weyn ee istiraatiijiyadan ayaa ah maalgelin dhan $442 milyan oo ay samaysay shirkadda DP World ee fadhigeedu yahay Dubai si ay u horumariso una maamusho dekedda Berbera ee gobolka iskiisu isku maamulo. Bishii hore, Israa'iil ayaa noqotay dalkii ugu horeeyay ee si rasmi ah u aqoonsada madaxbannaanida Somaliland, arrin loo arkayay guul diblomaasiyadeed oo weyn, taas oo sida uu qoray warbixin uu daabacay Axios oo soo xiganaysa mas'uuliin Israa'iili ah, Abu Dubai door muhiim ah ka qaadatay fududeynteeda. Ugu dambeyntiina, golaha wasiirada boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si cad u diiday uguna hortimid isku day kasta oo lagu wiiqayo midnimada wadajirka iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
iyagoo adkeeyay in Sacuudiga si buuxda u garab taagan yahay xasiloonida, midnimada dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. Hadalkan ayaa u dhacay si miisaan leh una dhigma oraah Soomaaliyeed oo tiraahda qaran kala go'ay qaran ma aha, taas oo muujinaysa in Sacuudigu u arko midnimada Soomaaliya tiir aan laga tanaasuli karin. Golaha Wasiirada Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa Talaadadii mar kale adkeeyay taageerada buuxda ee ay u hayaan madaxbannaanida iyo midnimada Soomaaliya, iyagoo si cad u diiday isku day kasta oo lagu wiiqayo ama lagu carqaladeynayo qarannimada dalka, sida ay baahisay wakaaladda wararka Sacuudiga SBA. Golahu wuxuu muujiyay taageeradiisa natiijada ka soo baxday kulankii degdega ah ee isugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka, kaas oo looga hadlayay xaaladda Soomaaliya kuna qabsoomay magaalada Jidda. Kulanka Golaha Wasiirada oo gudoomiyay Boqor Salmaan bin Cabdulcasiis ayaa si adag carabka ugu adkeeyay diidmada jiritaanka ama abuurista hay'ado ama maamul isbarbar socda oo wax u dhimaya midnimada iyo wadajirka Soomaaliya. Golahu wuxuu sheegay in boqortooyada si buuxda u diidan tahay hay'ad kasta oo isbarbar socda oo khilaafsan midnimada Soomaaliya iyo dhammaystirnaanta dhulkeeda, iyo sidoo kale isku day kasta oo lagu kala qaybinayo ama lagu faragelinayo madaxbannaanideeda. Hadalkan ayaa ku qotoma mabda' Soomaaliyeed oo fac weyn oo oranaya qaran kala jabay ma istaago, taas oo muujinaysa in Sacuudi Carabiya u aragto midnimada Soomaaliya tiir aan gorgortan laga geli karin.